sawirka bogganka muuqda waa tusaale muujinaya madax ka mid ah intii faraha badneed oo ka soo qayb gashay tacsidii marxuum Cabdulaahi Ciise Maxamuud bishii Maars 1988 oo lagu dhigay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaana mawaaqiirtaasi ka mid ahaa gudoomiyihii jabhadda xureynta NFD oo safar dheer u soo galay inuu ka qayb qaato tacsida marxuum Cabdulaahi Ciise aniga iyo حاجي عبد القادر لابد يدا waxaan ka soconaa qolahii dhexe ee jihada NFD leh iyo xubnaheeda dhan waxaan u nimidnaan u tacsiino marxuum nafti hore Cabdulaahi Ciise Maxamuud ninkaas oo ah nin aad u weyn taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo wadaniyada ummadda Soomaaliyeed ahaana meel kasta ninka Soomaaliga uu ogaa inuu ahaa mu'assisiin iyo hogaamiyihii ilaa inta xornimada laga gaaray dhulkan Soomaaliya ahaana kuwii aas-aasay ku beeray wadaniyada kulankii maqnaa ee Soomaaliyeed ee annagu aan ka midnahay dhulka loo yaqaano NFD haddaan nahay jabhadaas waxaan aaminsanahay inkastoo ay faral tahay geeridii Cabdulaahi Ciise inay ahayd darbaaxo weyn oo ku dhacday wadaniyada ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Abshir Muuse oo la soo shaqeeyay marxuumkaasi kuna dheeraaday ka xog waranka Cabdulaahi Ciise waxay tahay sharaf weyn inaan kulankan ka qayb galo Cabdulaahi Ciise ku saabsan Cabdulaahi Ciise haddaanu Soomaalinahay isu sheegi mayn doorka uu taariikhda Soomaaliya ku leeyahay waxa weeye mid macruuf ah Soomaaliyo adoon ah ayuu Cabdulaahi Ciise masalay yani rajadoodii xornimadooda rajadoodii nasabnimadooda rajadoodii karaamadooda rajadeedii iyo in Ilaahay faraj u furo ayaa Cabdulaahi Ciise masalay Cabdulaahi Ciise Soomaalida wuxuu yahay calan oo kale Cabdulaahi Ciise guri Soomaaliyahoo zamankiisii aan laga aqoon dibadda meel Soomaali ku nool shahadoon ma uu jiro anaguna waxaan isleeyahay waa Ilaahay fadligii inaan jiilkiisa intii soo gaadhay oo fursad u heshay inay barato waxaan Ilaahay fadligii wey aan ka mid ahay Cabdulaahi Ciise annaga maanta Soomaaliyihii waxaan leeyahay maanta kale Cabdulaahi Ciise kale u baahan war xaga u doonaa yaa laytalana inaan lo Cabdulaahi Ciise kale maanta waxaana Soomaaliya oo dhan ku waajibay annagana danteen ah dhaxalkii Cabdulaahi Ciise nooga tagay inaanu ilaashano haddaanu Soomaalinahay haddaanu dantayadana inaanu labada gacmood iyo gowsaha ku qabsano dhaxalkii Cabdulaahi Ciise Cabdulaahi Ciise ninka caynkaas ahaa oo calan Soomaali ahaa oo markii dambe oo yacni Soomaali ay xornimo heshana nin prime minister oo Soomaali dawladda Soomaalida nin yacni madaxda noqday ugu horreeyay weligii ma faanin waxyaalaha aniga raadka uu igu reebayna waxaa ka mid ah ninkaas tawaaduciisa ninka halkaas gaaray oo Soomaali haddayba yacni magaca Soomaalida iyo sharaf Soomaalida iyo caynkaasba masalayba oo Soomaali oo dhan mar u noqday xidigteedii Soomaali adoona xidig u noqday ay yacni
weligii ma faanin waxyaalaha raadka uu igu reebayna waxaa ka mid a tawaaduciisa haddaan yani soo gaabiyo laba sifo tawaaduc iyo xishood xishoodkii uu rasuulku yidhi yani iimaanku ka mid yahay ama waxyaalaha ambiyadaba ee sifooyinkooda ayuu ka mid yahay cabdullaahi ciise adduunyada wuxuu kaga tegay ciz iyo sharaf min ducaa'i rasuul yani waa ilaahay waxyaalihii rasuulka ilaahay ka magangalay waxa kamid khizyu dunya wa cadaab alaakhira adduunyada ilaahay yani khizyu dunya cabdullaahi ciise ma tusin bal يعني شرف قمديس dadka uu ka dhashay iyo dalku ka dhashay wuxuu ahaa zaciim Soomaaliyeed oo Soomaaliyo dhammi isku waafaqday oo Soomaaliyo dhan masalay oo Soomaaliyo dhan maqaali ka tahay oo Soomaaliyo dhan ay xurmaynayso misana wuxuu ahaa yani nin aad iyo aad mutawaadic ah oo xishood badan oo isdhowra adduunyada ceeb la'aan buu ka tegey aakhirana waxaan rabbi uga rajaynaynaa inuu cadaabkii ka xoreeyo waxaan khayr ahayn u rajayn mayno waxaan anigu haddaan marag galo aan markhaanti ka ah aniga aragtidayda aniga garaadkayga yacni binu aadam inuu xaq ka qabay u malayn maayo wax badan baan qiin waa la shaqeeyey waa ka agdhowaa muqarrabiintiisaan ka mid ahaa xaq binu aadam cabdullaahi ciise ma qabo ilaahayna waa ra'uufu raxiim marka adduunyadiina ceeb la'aan buu kaga tegi aakhirana waxaan khayr ahayn u rajayn mayno والسلام عليكم ورحمة الله مدني بردعد oo isna ku nuuxnuuxsaday wanaaga Cabdullaahi Ciise uu hayay umada Soomaaliyeed ama wax yar baan oranaya Cabdullaahi Ciise waxyaalo yar baa idin ka filan Cabdullaahi Ciise intuu soo qabtay meelood iyo hantida uu leeyahay waa idin ku filan tahay inaad garataan waxa idin ku filan Cabdullaahi Ciise intuu meel soo hayay iyo qof yiraaha reehan buu igu xumeeyay ama shakhsi ahaan buu igu xumeeyay intii anigu Cabdullaahi Ciise isagoo xukuumad ku jira xukuumadda mucaarad ku ah waa la caytay jira xukuumadda mooshin baan geyn jiray ilaah baa igu raacsiisan wasiirka kaliya intaan wada fariisano mushkilada markaa aan keenno aan ka wada hadallo ah وإنتان وضع فريسان لقد سيما هذا لغا شيكيستو هذا لا نسوعف قلنا أنه كلا تقنو يوأها مركع وحا كريو هذا عن قدام بيسينيا تبدأ وحا يلان تاريخ ذا هلا قرر هلا ويديه هلل تاريخ ذا في ساعة بالا سمية انتاين البحانو oo raasho jaraa'idkii waagi oo documentigii la raasho oo soo waxay waxa la qoro yaa laga sugaya niyo intuu hayaa sameey kana la isu keeno inta weeye hadii ay lillaahi la qabana sheekada badan inta la iska daayo calkiisii ha lagu kaco oo dadka hadda isqalanaya la kala celiyo oo waxa laga qabto buuqu waxba tari maayo فان وحا اسغو جدكيسي لمدو سيراديسي لا راعو انتا با فانو نينكي سميان فانو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaa kaloo halkaa ka muuqday oo tacsida ka qayb qaatay mudane Salaad Usmaan Roble waa makaan aad u sharfan aad u qiimo badan oo taariikh iyo xushmad iyo wanaag loo hayo ninkaas ciinka ahaa ee Soomaaliga ahaa oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed in xidig mar soo maray kamid ahaa ama waqtiyada ugu mudnaa soo maray ayuu kamid ahaa
annaku jiilka hadda jooga ee heestii amaba gabayadii ama murtidii faraha badneed oo waqtiga halganka lagu jiray loo riixaya inay noqdaan jiilkii halgankaas waxa ka soo baxa ayagu goran lahaa ama mudnaan lahaa cabdullaahi waxaanu uga baahannahay oo kaliya waqtigaa hadda la joogo taariikhda caadatan qofka taariikh wanaagsan waxba asagoo qofka ugama baahna laakiin sida dadka ayaa u baahan ركوز الدنيا تجديدين الله يودي دواقيا ركوز الدنيا تجديدين الله يودي